munaasabad la ka dhawaayay aasaasiyaalka jaamacadda Muqdisho oo la ka qabaday magaalada Baydhabo iyo waliba u qeyb galay mas'uuliyiin aqoon-yahano iyo qalinjibiyaal horeen ku aflahay jaamacadda iyo ujeedada ahayd intii la xiriirka ku dhaxeeyay qalinjibiyaalkii hore iyo aasaasiyaalka jaamacadda Muqdisho ongoreyntii waliba goobta ku duway agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dowladda Koonfur Galbeed Mudane Umar Mustafa Nuur uu soo faahfaahin ku biyo ujeedada munaasabadda uu soo nuuxisay muhiimadda yeelata intii la hoojiyay iskaaladowka qalinjibiyaalkii hore iyo hogaamiyaalkii aasaasi jaamacadda Muqdisho magaalada Baydhabo way ka sugna mudanayaal arday boqolaal oo jaamacadda Muqdisho ku qalan bedelay heerar shal duban marxalado shal duban oo aqoontiyo dadnimadiyo iyo tacliintisada oo isihasiin ku xiriyo ka adeegayaan bulshada iyo ka nool magaalada Baydhabo waa dhalinyaro ama aqoon-yahano oo dabcan ku qalan daaraday jaamacadda Muqdisho isla markaasina lagu gordo magaalada iyo dhahroogan iyagoo ka sifoowi tacliin tayo leh oo hatana asluubaysan وإلى ركورة جامعة مقدشة دكتي حسارتي ودك أو كدوم وإلى ركورة فريدة من نوعي ما يعني دك أو يوقع جرام كلهم الغضام وأنا ويبقى أنا تاسك كويتي تايدي يوم معناها أسلوبيات كي أساسيات كي قوانين يسمين دقيقا أصل الصح أنا اللي تطبيقي مركا إيه إذا ما سنتي جزاكم الله خيرا وطبعا سيكون أقوم يوم إلى أقوم معنا له أقوم تشليدي ومتراس لك أقوم معنا له يا لسيقول علي ويبقى كفرح سنة إلي أقاسم يالكم وزير حلبانا أقاسم واحدية أقاتير مجال التعليم دكتور راح جرو مجالنا أكبرنا معلمين وزارتها شلد وشقيوا إلي dadkii ku aflahay jaamacadda Muqdisho agaasimiyaalka guud ee wasaaradda caafimaadka kalluumaysiga iyo ganacsiga dowladda Koonfur Galbeed iyo dhinisho ku hadalay munaasabadda iyo bogaadii kaalinta muhiimka ah ee jaamacadda Muqdisho ku qaadatay horumarinta waxbarashada guud ahaan dalka waxaan aad ugu farxay oo maaragtay itusinaysa dadaalka xoog leh ee maaragtay madaxdanada ay geliyeen in jiilka Soomaaliyeed ay wax bartaan dabcan waxaan rabay kaliya inaan sheego jaamacadda Muqdisho marka la dhaho qof walba xusuus gaar ah iyo maaragtay waxyaabo uu ku soo xasuusanaa jirto waxaan ku soo dhaweynayaa oo aan ku faraxsanahay qayb ka ahaado qalinjibiyaasha jaamacadda ee madaxda ku soo dhaweynaysa degmada Baydhabo ku soo dhawaada degmadiina waxaan ku hadlayaa afka gabdhaha marka sharfiga nagata dadkii oo marka ilmagaas أصل هاي جيك مناها خير الله سياف بروفيسور دكتور شعالي أحمد أبو بكر يو بروفيسور ذا كيما بدأ ويل خايس هم لو يقول شيء هاي ويل أنا ويل خايس جزاكم الله خير الجزاء وكثر الله أمثالكم وأطال الله عمركم إلهي سنبارك إن شاء الله دكتور حسين إيمان أقومت هاي أساسيالك جامعة مقدشو يكو دهوي سفركي جامعة أقبضوغي لحمري يو قولوغي لديري أسو ديري قلنجبيالكي هورينكو أفله جامعة ما يقعد سنة تاريخنا يقابل لازم أبوي لازم توبر جامعة مقدشة سين توبرتي لازم شيء كري إن الدك مثال نقطع example نقطع لازم سوبي وميليس سيتام السفير بيتي جامعة مقدشة أو إيش اللي سنكدير أخلاق دين يدعن كي يأمانة دين لكدير دكتور شيخ علي أحمد يدنيشي وليبا وسوسي دورك جامعة كلها يتدسوك هيرفضو دلنيرده iyo muhiimadii kaleeta taageerada roogtada ee aqoon-yahanada guud ahaan dalka si gaar ah aan ku aflahay jaamacaddu arabnaa Koonfur Galbeed si gaar ah Said Ali iyo dadka mas'uuliyiinta ka looga codsado in arabnaa khaas ay yeeshaan oo santarka ku xidhan oo hadii loo baahdo Koonfur Galbeed sanadii mar la shirin karayaan Koonfur Galbeed oo dhan waxaan rabaa inay ka yimaadaan ceelasha biyaha ee magaalada Muqdisho qarka saaran iyo jaziira inay ka yimaadaan ma rabaa oo magaalada yimaadaan ma rabaa heshiis ma kuna sidaas haddii kale aan waxaan u oranayaa jaziira iyo afgooye waxa dhan in xagga la raaciyo aan u oranayaa
marka dhul badanaa khasaaraysaan moogtahay aniga marka maadaama asalkayga aan ahaa Alta Jubba aan ahaa Alta Jubba la kala gogooyaan aan u xanaaqsanahay aslan waa ogyahay Xuseen waa ogyahay Dr. Abdiraxmaan Abdullaahi Baadiyo oo taliye oo ku tirsan xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ku dahwiyay munaasabada wayba husay intii muhiim ah Ingiriiska hore qalinjibiyaalkii hore iyo aasaasiyaalka jaamacadda Muqdisho استراتيجية dadka iska celinta ah na waxaa la rabaa alumnayga jaamacadda Muqdisho inay hogaamiyaan idinka ayaa tababarkeeda leh idinka ayaa akhlaaqdeeda leh idinka ayaa wacyigeeda leh waxaa markaa rabaa dadka kale inaad gaarsiisaan oo idinka aad hoggaan ka noqotaan lama rabo marka in Soomaali la yiraahdo Soomaali niman eed sheeganaya joogaan waxaan ku iri walaal wasiirada markaan la hadlayo waxaa la rabaa in idin shaqo doonto meeshan waa barwaaqadii dhulka barwaaqada Soomaalidu barwaaqo badan waa koonfur galbeed marka waxaan ku iri sax ma aha in dadkiinu ay qaxooto ku noqdaan meelo kale marka waxaa la rabaa inaan qaxooti dambe idinka imaan oo waxaa la rabaa la idin shaqo doonto oo markii shaqada la aqbalay garayhaayo la yiraahdo inta ruux koonfur galbeed ah oo joogo ruux gobol kale ka yimid shaqada la siiyay bal aan aragna marka yaa baaga muddo naga haayay ya shaqo helay aan aragno asbata waxaa rabaa visionkaas aragtaas aad ku shaqaysanaa idinka rabaa idinka hadda waxaa waa sidii muuqatay madaxnimadu waa jaranjaro ma ogtahay hadda jaranjarada meelaha kamid ah aad fuusheen ma ogtahay jaranjaradaas waxaad noqoteen agaasimayaal guud waxaad noqoteen agaasimayaal waxaad noqoteen qaar wasiir ku-xigeenno waxaad qaarkood wasiiray noqdeen qaarkood baarlamaanka ku jira waxaa kala yani waana sii kobcaysaa waana sii soconaysaa baa la yidhahda gebagabadii Xildhibaan Saalax Shariif Jidka iyo munaasabada hir wayba uu ka dheeraday muhiimadda munaasabadaasi ay lahayd qalinjibiyaalkii hore iyo maamulka sare ee jaamacadda Muqdisho 97 oo wadanka dawladdu ku dhisanayn burbur jari dhibaato badan jarti laakiin waagaas ka fikir inta jaamacadda Muqdisho ka furo Muqdisho oo xaafad anshahiran qabiil anshahiran wasaaradda waxbarashada jarna mas'uuliyiintii odayaalkii waagaas ka fikireen inta jiilkan badbaadiyaano hal abuur sameeyaan eedeedan ka mahadnaqaan Maxamed Ali Baaqo warbaahinta dowladda Koonfur Galbeed Baydhabo